Ka waran adigoo hooyo ah oo single mother ah oo haysta cunug yar oo xanuunsan ee cunugta ay ka qaataan qolada xanaanada carruurta sidoo kale ee gaariga ay ka qaataan qolada taraafikada maadaama shil yar aad gashay markii shaqada imaadana laga eriyo maadaama aad soo daahday markay guriga aad tagta alaabtaada banaanka lagu soo dhigo maadaama aad kirada bixin weysay intaas waa caqabado haddii hal maalin ay kugu dhacaan adigoo qof garabkaaga taagnin filimkeena wuxuu ku bilaabanayaa hooyo lagu magacaabo Jinaya oo ah hooyo single mother oo la tacaalaysa gabar yar ee dhashay oo lagu magacaabo Arya halkaan isla markiiba aan arkayna nolosheeda iyo gurigeeda waxaan arkaynaa daawooyin la siiyay gabadha yar ee Jinaya maadaama ay xanuunsan tahay waxaan arkaynaa Jinaya oo quweynaysa gabadheeda yar wixii hooyadii soo xasuusinoo maanta macalinka soo weydiistay lacagta qadada oo ah $40 Jinaya gabadheeda waxay u sheegay inay lacagta qadada ay bixinayso markay soo baxdo waxay lacag yar siinaynin curyaan ah oo deriskeeda ah waxaa arkaynaa naagta guriga iska leh inay Jinaya ku qaylinayso maadaama ay kirada ay bixin Jinaya waxay u sheegay inay xilliga qadada ay bixinayso kadib markii ay Arya geysay iskuulka halkaas maamulaha ayaa la yaabaya Jinaya siday u naxsan tahay kadib waxay u dhaqaaqaysaa shaqada oo halkaas dukaan supermarket ah ayay ka shaqaysaa halkaasoo macaamiil badan ay joogaan waxaan arkaynaa maamulaheeda oo lagu magacaabo Rigid ayaa canaananayo waxayna bilaabay in macaamiisha ay u adeegto macaamiisha mid ka mid ah ayaa wuxuu rabay inuu ku adeegto kaarka deeq bixinta Jinaya waxay u sheegay in alaabta qaar lagu gadi karin dadkii ayaa meesha iskaga tagayo ninkii meesha dhala ayuu ku jebinayaa isagoo xanaaqsan wuxuu Jinaya ku amray inay meesha nadiifiso iyadoo qaybta dambe ee nadaafada joogto waxa uu maanayso saaxiibteeda waxayna rabtay inay xoogaa lacag siiso laakiin Jinaya way diiday maadaama ay lacag badan ay ka qaadatay saaxiibteeda Jinaya waxay wicitaanka helaysaa oo loo soo sheegaya gabadheeda waxay wicitaanka helaysaa oo loo soo sheegaya gabadheeda waxay wicitaanka helaysaa oo loo soo sheegaya gabadheeda waxay laaban helaysaa oo loo soo sheegaya gabadheeda waxay lacag weydiisanaysaa lacag una diiday inuu siiyo jeegeeda mishaarka Jinaya waxay u orday bangiga si uu soo qaadato lacagta qadada ee Arya balse safka aad buu u dheeraa haweeney lagu magacaabo Nicola ayaa waxay u sheegaysaa inay yar tahay lacagtay rabtay inay bangiga kala baxdo oo ay kala soo baxdo lacag badan waxaana la waa inaan safka gashaa safka aad ayuu u dheeraa wayna daahday markiiba iskuulka ayay u soo orday waxayna arkay gabadheeda ay ka heesanayaan qolada adeega carruurta waxayna u sheegay in gabadheeda yar ay dib loogu soo celiyo maadaama ay u baahan tahay TikTok gaar ah waxayna dhahay lacag la'aan imahaysa laba shaqo ayaan ka shaqeeyaa si aan u kaafiyo baahida gabadheeda qolada xanaanada waxay dhahayaan gabadhaada meel wanaagsan ayaan kuu geynayn hadalkeeda way iska indhatirayaan iyadoo isku buuqsan ayay gaarigeeda soo galay wayna degdegaysay maadaama ay shaqada lagu sugayay si lama filaan ah ayay gaari kale ugu dhufaneen oona wada nin lagu magacaabo Oliver oo ka mid ah askarta ninka ayaa cabitaan ku tuurna wuxuuna ku qasbaa inay jidka ka baxdo booliiska ayaa markaas imaanaya taraafikada waxayna ka wataan baabuurka sabab la xiriirkeeda oo dhacay markii ay ugu dambeyn shaqada soo gasho waa la ceerina wuxuuna u diidaa inuu siiyo jeegeeda lacagta markii ay guriga ku soo noqoto waxay arkaysaa alaabteeda oo banaanka yaalo waxayna meesha ka qaadanaysaa alaabteeda kuwa ugu muhiimsan iyadoo xanaaqsan oo qaylinaysa waxay ku noqotaa dukaanka si ay lacagteeda mishaarka uga qaadato maamulaheeda balse markaas ayaa laba tuuga ah oo huweysan ayagoo maamulaha dhahayo soo bixi lacagta qasnada waxayna rabeen inay dhacaan mid ka mid ah waxayna rabeen inay dhacaan waxayna rabeen inay dhacaan waxayna rabeen inay dhacaan waxayna toogeen mid ka mid ah tuugada midkii kalena uu fakana maamulihii isla markii wuxuu ku oodeynaa inay iyada ka dambeysay dhaca balse Jinaya waxay u sheegaysaa inay tuugada magaceeda ay ka akhristeen sumada shaqada asagoo booliiska wacaya ayay iyadoo argagaxsan Jinaya waxay tooganaysaa maamulaha waxayna soo qaadanaysaa jeegeeda lacagta kaliya wayna soo bixi markaas kadib bangiga ayay waxaana loo diidaa in jeega la siin karin aqoonsi la'aan iyadoo niyad daran ka muuqata Jinaya waxay la soo bixi biskooladeeda taasoo keentay in jeegeeda looga bixiyo lacagta si qarsoodi ah batanka gargaarka degdega ayaa loo taabanaa maamulada bangiga Nicola ayaa aqoonsanaysa Jinaya waxayna isku dayaysaa inay dejiso maadaama ay dadka dhan ay ka baqayeen waxay boosada ay ku wadatay ay u maleeyeen bumbo gabar dambi baari oo lagu magacaabo Detective Royman iyo gacanyareeda kuwaas oo horay u baaraya dhacdadii dukaanka Detective Royman ayaa lagu soo wargelinayaa dhacdada bangiga Nicola waxay la hadlay gabadha dambi baara iyadoo sheegaysa in Jinaya ay haysato bumbo gabadha dambi baara waxay dalbanay inay la hadasho Jinaya taleefanka ay isku fahmayaan isla markaa mid ka mid ah shaqaalaha bangiga ah ayaa si qorsoodi ah leef toos u baahinaya dhacdada taasoo keentay dareen dadweyne oo taageero leh taageerayaal ayaa iskugu soo baxaya banaanka markii Jinaya ay joojiso wicitaanka Detective Roymond waxay ogaanay in Jinaya ay run sheegayso wayna la danqanay Jinaya waxay amray in la dimiyo kaamiradaha bangiga qalabkii ay wadatay ayaa qeylinaya waxayna u maleeyay inay qarax qabto Jinaya way dimin hablihii waxay u
sheegay in waxaan tahay mashruucii gabadheeda ee sameysay oo saynis ah, balse shaqaalaha mid ayaa si qarsoodi ah fariin ugu qoraya daaqada musqusha, taasoo ay ku sheegaysay inay gabadha bombada ee wadata ee tahay mashruuc saynis ee gabadheeda sameysay. Detective Royman waxay feeray askarigii ka dambeeyay in gaariga laga qaato, waxaana meesha soo gaaray ciidamadii FBI-da. Detective Royman waxay ogolaatay inay la hadasho Jinaya. FBI-da way diideen Jinaya waxayna meesha ka fasaxay dadkii, laakiin waxaa soo laabanaya Nicole waxayna diiday inay ka tagto maadaama ay rabtay inay Jinaya nafteeda ilaaliso. Jinaya waxaa soo wacaysa hooyadeed, taasoo u sheegaysa in Arya geeriyootay habeenkii ay suuxdinta ku jirtay, dib uma soo kicin oo sidaas ayay ku dhimatay. Waxaa arkana in Arya aysan jirin ee maalintaas waxna waxay ahayd wax maskaxdeeda u sawiraysay, haddana maskaxdeeda ayaa waxa u sawiraysay in la tooganayo maadaama ay isku buuqsaneen. Si kastaba ha ahaatee, taasi waxay ahayd wax maskaxdeeda ay u sawiraysay. Xaqiiqda waxay tahay Jinaya inay si nabad ah ay isku dhiibtay iyadoo ay welinayaan Nicole iyo Royman, waana la xirayaa iyadoo taageero badan ay garab taagan yihiin. Fadlan haddaan ku cusub tahay channelka subscribe iyo like noo saar.